xilligii ololaha doorashooyinka ee aanu isbahaysiga ahayn xisbiga wadani waxa buddig u ahaa ololihii isbedel doonka isku haynta dadka iyo dalka mudane madaxweyne haddii gobolka awdal ama saylac iyo boorame iyo guud ahaanba gobolka awdal aynu isku hayn kari weyno oo siyaasaddu ay isku hayn kari weydo gobolka erayada aynu dadka ku beerlaxawsanaynay ee aragtida xambaarsana waxay u muuqan doonaan barkumataal iyo hadallo aynu maalinta gol kaga kacunaha الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكا ومالين جمعة مالين عبادة وحانو مدحدا يدن حسبك كاه halkan isugu soo taagnay inaanu erayo kooban ka nidhaahno xaaladda ay ku sugan tahay magaalada madaxda gobolka awdal boorame ugu horeyn waxaan halkan xisbiga ka wuxuu tacsi ballaadhan oo tiiraanya leh aanu uga diraynaa dadkii ku geeriyooday rabshadihii iyo banaanbaxyadii xalay ka dhacay magaalada boorame waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu dadka naxariistii janno siiyo dembigoodana dhaafo waxaan eheladoodii iyo qaraabadoodii gaadhsiinaynaa tacsi tiiraanya leh oo aanu la wadaagno xanuunka iyo dareenka taban ilaahay subxaanahu wa tacaala sabir haynaga siiyo dhammaan bulshada gobolka awdal baanu ka tacsiyeynaynaa dhimasho iyo dhaawac iyo duruufaha kale ee ku gadaaman oo dhan dadka dhaawacmayna ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo waxaanu dhaliilaynaa siyaasadda xukuumadda xisbiga wadani ee talada haysa siday xaaladda gobolka awdal u maaraysay waxaa nooga muuqata siyaasaddaasi siyaasad kacakuf leh oo qorshe sugan iyo aragti sugan aan salka ku hayn ma aha arrinaannu iskaga durayno laakiin arrinta gobolka awdal horena waanu uga dignay waxaanu dhaliilaynaa xukuumad soo saartay laba go'aan oo kala duwan oo marna xeerka ciise joojisay marna fasaxday waxaanu dhaliilaynaa bulshada gobolka awdal oo ah bulsho walaalaa leh xuquuq siman in aan si xikmad leh arrintaa looga bislayn waxaanu ka dignay inaan xoog arrintaa lagu muquunin ee xikmad lagu saleeyo waxa saaka noo muuqda annaga tii aanu ka digaynay gobolka awdal somalilan waa kuruskiisa waa baarka ugu sarreeya waa buqcaddii dowladnimadeenna cusub laga yeegleelay waa gobol caan ku ah nabadgelyo iyo aqoon maadaamuu habdhaqankaa gobolkaasi leeyahay wuxuu inaga mudan yahay in aynu ula macaamilo waxa uu ehelka u yahay waxaa shirkii jaraa'id ee shalay to galab ay dawladdu ku fasaxday xeerka ciise ku jiray hadalladii wasiirka warfaafinta
in xukuumaddu gogol nabadeed dhigayso xilliga xeerka ciise saylac lagu qabanayana waa la mudeeyey gogoshii nabaddana muddo looma samayn waa dhaliilaha noo muuqda xisbiga kaah mas-uuliyadda wixii halkaa ka xumaaday gobolka awdal hore iyo dib waxaanu dusha ka saaraynaa xukuumadda xisbiga waddani xilligii ololaha doorashooyinka ee aanu isbahaysiga ahayn xisbiga waddani waxaa buddhig u ahaa ololihii isbeddel doonka isku haynta dadka iyo dalka mudane madaxweyne haddii gobolka awdal ama saylac iyo boorame iyo guud ahaanba gobolka awdal aynu isku hayn kari weyno oo siyaasaddaadu ay isku hayn kari weydo gobolkaa erayadaa aynu dadka ku beerlaxawsanaynay ee aragtida xambaarsanaa waxay u muuqan doonaan barkumataal iyo hadallo aynu maalintaa gole kaga kac uun ahaa waxaanu leenahay dhaliisha iyo qawadka iyo saluugga aanu soo xusnay kadib waxaanu ugu baaqaynaa shacbiga reer boorame inay isdejiyaan inay amniga dhowraan inay bannaanbaxyada joojiyaan rabshadaha leh waxaanu ugu baaqaynaa ciidamada ammaanka ee ummaddan saaxiibka la ah ee ummaddan amnigooda ilaaliya inaanay marnaba adeegsan xoog dheeraada oo aan loo baahnayn xabadda la ridaya waa xoog dheeraada waxaanu ugu baaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan haddaanu nahay xisbiga kaah 3 talo oo degdeg ah inuu qaado ugu horrayn waa inuu shacbiga la hadlaa si degdeg ah oo bulshada dejiyaa oo hadal mug la jeediyaa oo aragti xambaarsan waa qodobka labaad waxaanu ku baaqaynaa in la joojiyo muddada loo qabtay qabashada xeerka ciise oo la hakiyo waxaanu ku baaqaynaa qodobka saddexaad in la soo hormariyo gogoshii nabadda ee bulshada gobolka awdal lagu tarxaan saarayey lagu wada hadalsiinayey taasoo ay ka dhalan doonto xeerka ciise iyo qabashadiisa iyo aragtidiisa iyo wixii la midi marka bulshada la nabadeeyo la isu turxaan saaro ayaa markaa waxa la isku haya go'aan laga gaadhaa waa qadiyadda aanu duraynay bay ahayd taasi ma ahayn in nabadaynta iyo turxaansaarku uu dambeeyo ama muddo yeelan waayo waxaanu leenahay bulshada somalilan dhammaanteen waxaanu ugu baaqaynaa inaynu adkayno midnimadeenna iyo wada jirkeenna maanta waxaynu ku jiraa duruufo adag dalka waxaa ka jirta abaaro ba'an bari iyo galbeedba oo gurmad inooga baahan maanta waxaynu ku jiraa dagaallo siyaasadeed uu maanta cadow badanay inala dagaalamayo waynu ognahay maanta inaynu cagaha dhulka ku adkayno iskaashanno isku duubnaanno cadowgeenna tunka u buuro ayaa waajib inagu ah soomaalidu waxay tahdaa hoostiisa daya hareertiisa ma dayo waa inaynu waxa gudaheen ah dad walaalaa baynu nahay aynu dulqaad iyo sabir iyo isu tanaasul iyo turaale aynu kaga gudubnaa waxaanu ku soo ururinaynaa arrinta gobolka awdal sida ay ku socoto maaha mid la aqbali karo mas-uuliyaddana ma qaybsana waa in madaxweyne
tallaabooyin degdega aad qaadaa waa inaad shacbiga la hadashaa waa inaad ummadda ururisaa waa inaad ummadda midaysaa taasaanu kaa eegaynaa taasaanu kaa rajaynaynaa taasaanu kugu dhiirigelinaynaa aad iyo aad baad mahadsan